بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشرة امتحانها aynu ka hadli jirnay luqadda loo yaqaano SQL ama Structured Query Language cashirkeenan afraad waxaynu ka hadli doonaa waxyaalaha loo yaqaano data types operator precedence iyo commentiska iyo waxyaalaha loo yaqaano white spaces casharadeen hore waxaan uga soo hadalnay sidii database loo abuuro sida loo tirtiro sida magaca looga bedelo hadda waxaanu geli doonaa waxyaalaha aan tutorialkan uga hadli doono waxaa ka mid ah muxuu yahay data type sidee u isticmaaleynaa maxaynu u isticmaaleynaa iyo qaybaha kala duwan uu leeyahay iyo operator precedency-ga si operatorska iyo u kala awood badan yihiin iyo commentiska waxyaalaha loo yaqaano noocyada u kala baxaan iyo white spaceska sida ula dhiilgalaynaya database-keen data type maxaa la yiraahdaa aan ugu horeeyo data type-ku waa xogta daatada gelaysa column-kaas ama variable-kaas lagu keedinayo so markaad abuuraysid table ama variable marka laga soo tago magaca aad u bixinaysid oo specific ah waxaa kaloo u baahan tahay inaad sheegtid xogta daatada meeshaas aad ku keedinaysid haddii ay tahay numbers haddii ay tahay qoraal haddii uu yahay image ama date waa inaad sheegtaa xogta daatada meeshaas aad ku keedin doontid sideen u isticmaalaynaa marka data typeskaas ama nooca xogtaas waxaad u baahan tahay inaad marka hore soo sheegtid column-ka markaad abuuraysid ama variable-ka xogta aad ku keedinaysid waa inaad sheegtaa haddii marka telefoon oo kale aad meel ku keedin rabtid waa inaad dhahdaa number ka dhig taas maxay keenaysaa marka hadhowdii inuu qofkii loo ogolaa diido in meeshaas uu soo geliyo qoraal meel number loogu talagalay qoraal inuu soo gelin waayo for example ama haddii kale meel qoraal loogu talagalay inaad number u diidid sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa data type-ka inaad memory-gaada oo space-kiisa aad qayb ka mid a qabsatid for example haddii aad character-ka oo kale ama qoraalkaas 5 xarf ogoleed ka badan lama soo geli karo hadhowdii 5 xarf ayaad u qabanaysaa marka noocyo badan ay leeyihiin data typeska waan arki doonaa for example hadda sign up page-kan wuxuu leeyahay waxaa loo yaqaano first name inuu qofka soo geliyo magaciisa koowaad magaciisa labaad oo aabbaha magaciisa iyo numberkiisa so labadan column waxay ka siman yihiin in ay qaadanayaan data type la yiraahdo character ama nooc alphabetic lama ogola marka number in lasoo geliyo meeshan qofka magaciisa qaybtan kaleeto waa number oo looma ogola in lasoo geliyo maxaa la dhahaa character ama qoraal fikradda marka data typeska waa noocaas oo waxaa loogu talagalay in lagu xadido xogta meesha aad gelinaysid nooca ay noqonayso marka sawirka hore aan soo aragnay last name iyo first name waa character numberka badanaana waa integer marka data typeka markaad table markaad abuuraysid marka column kasta waa inuu leeyahay ama field kasta waa inuu leeyahay data u gooniya marka noocyadooda as general categorieska ay kala leeyihiin waa noocan exact number oo wax jajaba ma lahan approximate number oo floatka iyo waxyaalahaas waa jajabay leeyihiin iyo date and time characterka oo kaleeto unicode character string binary string oo binary image iyo wax loogu talagalay iyo data type kale oo dheeraada sida cursor iyo table iyo kuwa loo yaqaano marka mid mid usii dul istaagaynaa as general marka tree-gan ayaa ku tusinayo qayb kasta waxa soo hoos tagaya exact numberka oo kale waxa soo hoosgalayo numberska integer iyo decimal iyo money iyo small money approximate numericskana waxaa soo hoosgalayo labadan qaybood oo loo yaqaano float iyo real date and time kuna waxaa soo hoosgalaya date time small date time date time 2 ama date ama time midday noqotaba characteriska oo kale characterkan varchar iyo varchar maximum iyo text mid kasta waa arkaynaa waxa uu keediyo unicode character stringaasina ku xigo njar oo loo yaqaano national character iyo nvarchar binary stringska ayaa ku xigo qaybta loo yaqaano categorian waxaa soo hoosgala marka binary iyo var binary oo variable ah iyo image waxa loo yaqaano data typeskuna waa cursor iyo waxyaalahaas xml oo kale data aad rabtid inaad kedisid ama table hadhowda aad gadaal isticmaali rabto xogtiisa oo kale inaad gelisid marka aad u baahanto oo kale sidaas ayuu isticmaalaysaa qaybta ugu horeysa marka exact numberka waa 9 nooc uu leeyahay saa ujeedid big int integer small integer tiny integer
decimal money, small money, waxyaalahaas oo dhan waa isticmaali kartaa midka markaas aad u baahan tahay baahidaada ayay ku xiran tahay. Approximate numberskuna waxaa waaye kuwan aad ujeedid float iyo real. So intan waxay kuu sheegaysaa waxay u dhexeysaa 1 up to 53 valuegaas waa inaad sheegtaa oo hadhoodii possible valueska oo lasoo jajabka ay qaadanayso waaye markii loo fiiriyo jajab ahaan inta ka dambeysa pointiga. qaybtan kalena waa date and time. waxay keedisaa columnkan haddii aad date and time ka dhigtid waxaa lagu keedinayaa taariikh iyo waqti, oo ayadana waxay keedin doontaa date time, small date time, date time. date time offsetku wuxuu la mid yahay date time kan laakiin wuxuu ka bedelan yahay time zone ayuu wataa offset. date time 2 oo asaga wuxuu leeyahay from January 001 kasoo bilow ilaa iyo December 9999 intaasoo lagu keedin karaa asaga rangigaas inta u dhexeyso. character string waxaa lagu keediyaa characteriska, wuxuu leeyahay char character, variable character isbedbedelaya, varchar maximum oo intaan u qaadaa asaga maximum. textiga asaga wuxa uu qaadaa oo la egyahay widthkiisu waa 2 GB oo data ah qoraal 2 GB oo qoraal aad ku keedi kartaa text. waxaa kaloo jiro Unicode character string oo njar iyo nvarchar waxa la yiraahdo waa national character. intaas waxay taagan tahay national waxyaalaha Unicode oo keedina. marka haddii aan fiirino characterka iyo n characterka waxyaalaha ay ku kala bedelan yihiin, characterku wuxuu keedinayaa fixed length oo non Unicode characters ah, halka kan kalena uu keedin doono Unicode characters. marka kan 1 byte ayuu wixii dhan ku keedinayaa waana 8000 oo byte. kana 2 bytes ayuu datada ku keedinayaa oo u kala qaybsan 4000 ilaa iyo 4000 badanaa marka kana la isticmaalaa characterkan. marka waxaan soo aragnay characterka fixed mar uu yahay iyo mar uu variable yahay maxay ku kala bedelan yihiin. characterka mar haddii aad character of 3 oo kale haddii aad dhahayd for example hadda characterkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oo kaleeto character of 10 markii aad dhahayd waxaa lagu qabanayaa intaan. so inta aad isticmaashid maahan inta kale wuxuu ka dhigayaa blank, way banaanaanaysaa oo hadhow memorygaas lama isticmaali karo, kan ayay u banaan tahay. halka characterka oo varianka ah oo ama variable-ka ah oo isticmaali doono keliya inta loo baahan yahay. hadda intaan waxaa loo qabta Python 1 2 3 4 5 6 inta kale looma qabanayo. kanoo kale HTML 4 xaba ayaa loo qabta. kan kale wuxuu uga fiican yahay memoryga iyo spacekiisii ma kaa xadidayo oo markasta inta loo baahan yahay keliya ayuu qabanayaa. binary stringska waxyaalaha loo yaqaano waa binary data ayuu keediyaa isagoo variable ana waa kana. images oo kale iyo waxaas waxaa lagu keediyaa asna data type-ka oo column-ka aad u baahantay image daarti inaad keediyo sidoo kale. other data types oo kale waxyaalaha loo yaqaano waa cursor oo kale ama table ama XML data oo kale haddaad rabtid inaad keediyo sidoo kale inaad column-ki ka dhigtid XML data type-kiisa. marka character iyo var characterka waxay ku kala bedelan yihiin. waxaa speed badan characterka markii la yiraahdo datada la soo aqriyo isagaa wax soo celi og isla markii oo execution time-ka uu qaadanaya aad u yar. ciwaankan kale noogu xiga waxay tahay operator precedence. operatorska iyo qaabka ay u kala hormarayaan parentheska ugu horeysa ogeed. unary operatorska waxyaalaha loo yaqaana ku xiga tilda iyo mathematical operatorska ayaa ku xigo oo arithmetic operators ayaa ku sii xigo plus iyo minus comparison operators bitwise-ka ku xigo not saan ayay u kala hormarayaan hadday iska hor imaadaan. for example hadda marka haddii aan soo select gareeno 12 lagu dhuftay 2 lagu daro 24 saa ognahay waxaa xoog badan ku dhufashada multiplicationka xoog badan ayada ayaa laga bilaabay. marka labadan isku dhufanaya 24 waxaa ku daraya 24. for example haddii marka aan labadan bracket gelina ka waran labadooda ayuu ka bilaabayaa. marka hore wuu isku daraa 26 kadib ayaa lagu dhufanaya 12 waa 313.
haddii marka aan fiirino sida ay noqonayso 2 lagu dhuftay select 2 lagu dhuftay 2 lagu daray 24 waxaana siin doonaa 48. so resultigan iyo resultigaas waa is leeyihiin. haddii marka aan sameyno inta inaan bracket dhigno wuxuu sameynayaa 312. so kan iyo kaasna waa is leeyihiin. markasta marka waxa uu fiirinayaa siday u kala awood badan yihiin. SQL commenteska iyo waxyaalaha waajib spaceska waa iska optional oo waxay qurxinayaan programkaaga iyo hadhoodina waxay ka dhigayaan mid si fudud loo aqri karo. readability-ga programkaaga ayaan ku warigaadii fududeynaysaa. marka waxay u kala baxaan single comment iyo multiple line comment ama block. labada nooc ayay u kala baxaan oo waa optional. haddii marka aan fiirino qaabka ay noqonayaan single commentiga oo kaleeto haddii aan dhahno single comment waa single comment. haddii aan u baahano multi-line comment waxaan leenahay multi-line comment. waxaana ku xiraysaa sida so waa multi-line comment. single line commentigana qaabkan ayaa loo isticmaalaa, multi-line commentigana qaabkaas kaleeto. white spacesku marka sida general ah sida guud ahaaneed SQL-ku wuu ignore garayaa markii executionka la sameynayo, laakiin formatka iyo readability-ga akhrinta ayaa fududaanayso ee koodkaaga haddii aad isticmaashid. hadhowda marka qof kasta ugu fududaanaya koodkan waxa aad kala jeeday query-gan oo kaleeto dad korkiisa ku qortid query-gan wuxuu soo akhrinayaa student-iga markiskiisa u dhexeeya intaas intaas. hadhowda qofkii waxaa fududaanaysa inuu akhriyo programkaagina mid si fudud loo akhriyo ayuu noqonayaa. marka badanaa marka waxaa la isticmaalaa spaceskaas oo kaleeto. hadda inta kale space u dhexeysiiyey inta kale comma markii ilaahay space u dhexeysiiyey marka spacekaas waxay fududeynayaan programkaagii in la akhriyo si fudud in loo akhriyo. commentigu inta ku daray commentigan wuxuu u isticmaalay wuxuu yiri waxaan soo akhrinaynaa countrieska regionkooda 1 oo ka bilow regionkooda uu 1 u yahay. so countrieska regionkooda 1 u yahay soo akhrinaynaa. hadhowda koodkan waxay u fududaanaysaa simple aanan gudaha u gelin inaan query-gan arko bal wax ay ku saabsan tahay. marka summary-ga haddii aan soo khulaaseyno table kasta markaad abuuraysid columns ayuu leeyahay. marka column kasta markaad sheegaysid waa inaad data type-kiisa aad sheegto. data typeska noocyada soo kala baxaan waa aragnay mid kasta qaybta soo hoos imaado. waxaan kaloo soo aragnay commenteska iyo waxyaalaha loo isticmaalo iyo sida ay u qurxiyaan programkaaga iyo labada nooc single-ka iyo single commenteska single line iyo multiple line. waxaan kaloo soo aragnay white spaceska waxa loo isticmaalo asna in programka formatkiisa uu qurxiyo hadhowdina waa la ignore garaynaya markii execution time-ka la tago. waxaan kaloo soo aragnay operator precedence operatorska iyo qaabka ay u kala horeeyaan iyo si u kala awood badan yihiin. insha allah casharkan kan ku xiga ayaan kulmi doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.